qaybta uu weerar ku qaaday ama ku bixiyay maxkamadda la weeraro dadna maxaabiistii sharcigu sii daayay si sharci darro ah oo xooga looga baxay seelada iyagoo ku jira markii sharcigu sii daayay wixii wax lagu weeraray la xukumay si sharci darro ah xoog loogu qaaday taliyaha qaybtuna bixiyay amarka sidii loogu xaystay maxaabiistii la sii daayay sidii ku dadkii xorriyadooda loo celiyay sidii ku xirantay taniintii ka dambeysay markii si weyn u soo ifaaxday dhacdadan ka dhacday maxkamadda gobolka Saraar ee magaalada Caynabo ee waxa si weyn isu soo tarayay walaac ay qabaan qaybo ka mid ah garsoorayaasha sidoo kale qareenada ka howlgala maxkamadaha dalka halkani waa xarunta guud ee ururka qareenada Soomaaliland ee loo soo gaabiyay Salla oo telefishinka Soomaali Cable waraysi gaar ah ay ku siiyeen xogayaha guud ee ururkaasi Jamaal Xuseen Axmed Mandela iyo sidoo kale Maxamuud Cabdiraxmaan Nuur xubin ka mid ah garyaqaanada ka howlgala maxkamadaha dalka waxaanay fariin u direen madaxweynaha iyo waxaana mid u soo qaateen dhacdooyin la mid ah dhacdada ka dhacday magaalada Caynabo xarunta gobolka Saraar way doorkiiseen garsoorkii oo ka qeyliyay markii hore booliiska oo maxkamadda dhexdeedii maxaabiis kala baxaya waxa arintaasi ka dambeysay barasaabkii oo hadlay maayirkii oo hadlay intaasba waxay eedeeyeen garsoorka maayirkoo kale wuxuu gaaray inuu yiraahdo haddii garsoorku si aanu doonayno wax u xukumi waayo annaguna dambiilad dambe soo qaban mayno su'aasha koobaad waxay tahay horta marka hore maayir buu ahaay waa maxay dadku soo xirxiraya awoodda sharci halkeebuu ka keenay shaqadiisu sata matay inuu cid soo xirxiro waaxda garsoorku sida uu dhigay qodobka 25aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa waaxda qura ee saddexda waaxood ee qaranka awoodda u leh inay cid xidhcidna sii deyso بوليس بان عيد سو خري كرين hadii aanu qofku markaa dambi faraha kula jirin madaxweyne wasiiradiisa iyo cid kale hadalkooda badda amar cid soo xilida ma bixin karaan waxa awooddaasi gaar u tahay waa waaxda garsoorka saddexda waaxood ee qaranka markaynu eegno waaxda garsoorka sida uu dhigay qodobka 79aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u xil saaran tahay u garnaqa dadka وقرناق ددك يا دولده يلا ما دولده لفتركيده دخدوده وخي كدعه وواحده اسريسه سدخده واحده قرق مدحوينو عيد كلي اسك داي انو يراهدو ماير iyo barasaab iyo cid ka hooseysa inay yiraahdaan amarada garsoorka qaadan meeyne garsoorka waxa ugu hooseeyay garsooraha heer degmo madaxweynaha ayay waajib dastuuriye ku tahay oo qaran inuu kaasi qaato cid kale iska daay amarka garsoorka madaxweynaha ay inuu hogaansamo hadaba markaynu soo noqono booliisku maanta sida uu wadaa yaa ay fulintu wadaa waa inuu waaxdi garsoorka ka dhigo maxbuus xukuma maaha wax kale waxa lagu toojar gareynayaa garsoorkii oo la rabaa booliisku intuu ciddu doono soo xidho isagoo si sharci u marin maanta maxaabiista Soomaaliland ee garsoorka la hor keeno boqolkiiba 90 in ka badan si sharci darro lagu soo xidho hal qof oo waaran u qaataan ma jiro sharciguna muxuu dhigayaa in waaran loo qaato kafaraha dambiga kula jira ee ay qabtaana immediately isla markaba hada ma aha biriye saadamada keeneen isla markaba garsooreynay ogeysiyaan 48 saacadood in ay ku xalaashadaan sida uu dhigay qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta hadii ay procedure-kii sharciga ah markii maxkamadda hor keenaan noqdo qofkaasi qof aanay u marin garsoorahaasi isla halkaas ku sii deynay qofka marka tira Soomaaliland maxay u mari weynaa dariiqi sharciga wax lagu oranayaa wax badan bay naga xuno waynu butuluqsanna war sharciga butuluqsiis ma qabto waxa taa ka daran wax lagu oranayaa booliiska iyo maxkamadu way wada shaqeyn bileen wada shaqeyn ma laha sidoo madaxweynuhu uu amro taliyaha booliiska si ka sareyso garsoorku uu amraa cid qura ee toos u amartay way garsoorku booliiska wada shaqeyn male waa jamcihi sharciga booliisku waxaanay tahay warqad kasto ka soo baxda garsoorka inuu seed ugu hogaansamo ma hadadooda shaqeeya waa halka ay ka xuntay sarto ay ka qurumtay ee lagaaga dhigay labadooda shaqeeya booliisku isaga waxa kaliya uu sameeysan yahay waa inuu sharcigu u hogaansamo oo garsoora wuxuu amray uu qabto iska daa maxbuus uu ka sii daayay haduu waxa kale cid ugu sareysa ee fulinta haduu wasiir ku amray inuu soo xiro waa inuu siisa u qaatay soo xiro وما تعلق قرصوره وحاينه مقالة بقى مصاحبة مركز هلا جاي ماده
garsoorka marka qof la hor keeno labun buu garsoorku tahay waajibkiisu inuu qofka ila dambi baan ku helay iyo inuu ila waan ku weyn hadduu ila waan ku weyn sidoo dhigay qodobka 218 xeerka habka ciqaabta faqradiisa labaad immediate release waa in qofka isla markaa xorriyadiisa loo celiyaa maaha booliisku inuu halkan ku qaadanayo xabsigii la tagayo maaha waaran in laga daba keeniyo halka waa in katiinada laga faa laakiin maanta taa way ka duwantay wuxuu xaalku marayaa garsooraha hortiisa inuu hadduu doono ku dhirbaaxa qofkii maxbuuska ahaa inuu qofkii oo fayo iyadoo lagu rumaan gareeyay inuu biri keeno hadduu doono maxbuuskii jaban inuu subaxii keeno maxaabiistii oo wada kabala oo qaargaan gari qaadeen hadee oo qaargaan gari qaadeen intaaba way dhaafto isagoo dastuurka qodobka 16aad faqradiisa labaad ay leedahay mas'uuliyad ciqaabeed waxay ku kooban tahay cidda geysatay qura maanta booliisku wuxuu marayaa shaqadiisii intuu ka waansaday booliisku isaga ay roodeen u galo isaga ay dambiilaa inuu raadsado isaga ay hal kasta oo loogu tilmaamay inuu ka daba tago intuu faraha waxa soo dhan ka qaaday inuu hooyo tamaadho suuqa ku iibinaysa oo xidhayna ka agiyo 25 jir suuqa qof moobil kaga qaaday warooyadu ma qof 25 jir ay xukuntaa waxay ku ogtay inay yaro suuqa galay isaga ay magaciisa saddexan markuu helay inuu raadiyo oo waliba aanu iska raadsan waaran maxkamadeed u qaato laakiin maanta markay maraysa taliye qaybeed intuu maxkamad soo galay inuu maxbuuskiisa kula soo baxo in gacantiisa markay maraysa garsoor hortiisa inay ku dhirbaaxaan dabar loo waayo macnaheedu ma jiro rule of law iyo sharci aynu ixtiraamaynaay waa inaynu kala sarreeyno nooc deedeeg u kala sareeyo hebelku ka qori weeyaa ka akaygisita inuu ka suuqista ka xoog roado mid kale brown sita asna ka soo waxaan u aragnaa inay dhibaato weyn ku tahay halkan u soconay iyo muxuu ahaa himiladaynu lahayn waxaanu leenahay markaasi arintan markaa arin la yareysan karo maaha walaa caad weyn oo ka qabnaa waxaanu arkaynaa anagu dhacdada iyo kuwa la midka ah oo soo noqnoqday oo markii imika shanaad ka badan oo muxuu ahaa si publica imika u soo baxay in looga hadla waxay aad walaac waxay keenaysaa walaac iyo muxuu ahaa arin aad looga naxo sidaas darteed waxaanu markaa u soo jeedinaynaa hay'adaha qaranka tusaale ahaan baarlamaanka waxaanu soo jeedinaynaa in guddi baadhisa oo degdega loo saaro dhacdadan iyo kuwa la midka ah oo muxuu ahaa anaguna wixii aanu ka tari karna ka tarayno taasi waa qodob waxaanu sidoo kale u soo jeedinaynaa xisbiyada qaranka macaarid iyo maxaafid waxa wanaagsan in amuujisaan inaad ummadda jecel ka leedihiin dhacdadan iyo dhacdooyinka kale ee la midkii waxay muujinayaan in arintaasi ay u baahan tahay taxadir iyo in meel lagu tiiriyo labadaba saas darteed iyagana waxaan u jeedinaynaa inay arimahan iyo kuwa la midka xil iska saaraan waayo waa dawlad ma ahaana mise ma ahaano weeye su'aashu marka inay iyagu la safdaan anagu soo laahan ururka garyaqaanada Soomaaliya wuxuu jecel yahay mar kastaba haddii arintu tahay oo dhacdadani marka ay noqonayso dawlad ma noqono mise ma noqono anagu waxaan la safarnay mar kasta cid dawladda noqono Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.